mudaharaadkan oo rashada watay ayaa maanta galinkii dambe ka bilowday gudaha magaalada Laascaanood waxaana uu saameyn ku yeeshay isku socodka dadka iyo ganacsiga waxa mudaharaadkani ka dhashay ka gadaal markii xalay kooxahan haybtooda la aqoonsan ay dileen mid kamid ah askarta ilaalada kantaroolka bari ee magaalada Laascaanood waxaana dibadbaxan sabab u ahaa jawaab la'aan mas'uuliyiinta maamulka iyo kan ammaanku ay ka gaabiyeen baaritaanka kiiska dilka waxa maanta magaalada Laascaanood ahayd mid ay ku qasanayaan dadweyne cadhaysan kuwaasi oo wadooyinka waaweyn ee magaalada ku gubayeen taayiro sidoo kalena goobo wadooyinka qaar ku xidhay dhagaxaan waxa xusid mudan in dibadbaxayaasha cadhaysan ay dhagax tuur kala daaleen goobo ganacsi oo ku yaal bartamaha magaalada Laascaanood kuwaas oo ay kamid ahaayeen shirkadaha Telesom iyo Dahabshiil waxa xilli dambe dibadbaxayaasha kala diidiyay ciidamada booliska ee gobolka Sool waxaana xaafadaha kala duwan ee magaalada laga maqlay dhawaqa rasaasta kala duwan kuwaas oo ay ridayeen ciidanka ammaanku iyagoo ku kala diidanaya dadweynaha gadoodsan isku dayo kala duwan aanu la sameynay mas'uuliyiinta maamulka gobolka ayaysan u suurtagelin inay nooga warbixiyaan xaaladda ammaan iyo howlgaladii ay sameeyeen waxa xusid mudan in ciidamada ammaanka ee gobolka Sool ay soo qabteen qaar kamid ah banaanbaxayaashii waxaana haatan xasilooni laga dareemayaa goobihii maanta banaanbaxyadu ay ka dhaceen banaanbaxan ayaa ahaa mid qaatay saacado badan hase yeeshee ilaa iyo hadda ma jiraan wax khasaare ah oo ka dhashay marka laga reebo burbur soo gaadhay goobo ganacsi wadooyinka waaweyn ee magaalada Laascaanood ayaa lagu arkayay ciidamo badan oo boolis ah kuwaas oo sugaya ammaanka magaalada Mukhtaar Cabdi Jaamac Kalsan TV Laascaanood